Kan waxaan uga hadlaynaa subjective pronouns magacyaalada falsameeyaalka ah sidaan horey idin ballan qaaday. Waxaan ka hadlaynaa subject, verb, object iyo wixii kasii dambeeya maadaama Englishku uu yahay luqad SVO ah ama subject, verb, object ah. Subjective pronounada aan ka hadlayna waxaa ka mid ah I oo ah aniga, micnaheedu waxa waaye first person waa qofka koowaad oo singular oo keli ah. First person marka aan leeyahay waxa waaye the person speaking waa qofka hadlaya ayaa la yidhahdaa. You oo adiga ah marna noqoto idinka waxaa la yidhahdaa second person qofka labaad oo singular keli ah. Pluralna way noqotaa jamac. You are student waxaa tahay arday. You are students waxaad tihiin arday. You are students waxaad tihiin arday waa markay jamac tahay esta aan ku darnay. We oo ah ayadana anaga waa first person plural. First person plural waa qofka koobaad oo ah jamac. First person markaan leeyahay waa qofka hadlaaya. Waa qofka hadlaaya. The person speaking qofka hadlaaya la yidhahdaa. You oo aan soo dhaafnay hadda you waa the second person markaan leyni waxa waaye waa the person speaking to qofka lala hadlayo ama spoken to qofka lala hadlayo. You wiina maxaan dhahnay anaga oo ah first person plural. First person waxaa waaye the person speaking qofka hadlayo. We are students waxaan nahay arday. Iyaga they are students waxay yihiin arday. They were third person waa qofka saddexaad oo plural ah oo jamac waaye. Qofka saddexaad oo jamac ah. Qofka saddexaad waxaa waaye the person spoken about qofka laga hadlayo. Macnaha waxaa waaye qofka laga hadlaayo waa qof maqan oo aanan joogin. They are. He oo isaga ah waa third person singular waa qofka saddexaad oo keli ah. Third person markaan leena maxaa waaye waa qof naga maqan oo aanan joogin. She oo ayada ah sidoo kale waa third person singular waa qofka saddexaad oo keli ah waa qof naga maqan. It oo ayada ah waa third person singular qofka saddexaad oo keli ah. It means waa qof naga maqan. They are students waa arday. Iyaga he is student isagu waa arday. She is student ayadu waa ardaya. It's a cat ayadu waa bukulaal. qaybtan marka waxaan ku qaadanay I, you, we, they, he, she, it oo aan dhahnay I waa first person waa qofka koowaad. You oo second person qofka labaad singular plural labadaba. We oo first person qofka koowaad oo plural jamaca. They oo ah third person qofka saddexaad plural jamaca. He oo ah third person singular qofka saddexaad kali ah. She oo ah third person singular qofka saddexaad kali ah. It oo ah third person singular qofka saddexaad oo kali ah. You aniga you adiga ama idinka we inaga they iyaga he isaga she ayada it ayada oo ashyaa. Okay, qaybtan waxaan uga hadlaynaa verbs falalka. Verbska waxaan u qaybinaynaa saddexdan verb to be fal ahaansho, auxiliary verb fal caawiye, main verb fal muhiima. casharkeenan laakiin waxaan ugu hadlaynaa verb to be ayaan ugu hadlaynaa presentgiisa iyo future iyo past. Verb to be present form fal ahaanshaha jooga waxaa ka mid ah is, are, has been, have been. I am waxaan ahay. He is wuxuu yahay. She is waxay tahay. You are waxaad tahay. He has been isaga wuxuu ahaa. She has been iyadu waxay ahayd. I have been waxaan ahaa. kuwaasaan teenisiyada presentga ah siinaynaa markay yihiin verb to be fal ahaanshaha. Verb to be future fal ahaanshaha mustaqbalka waxaan siinaynaa will be, shall be or will have been, shall have been. Will be future waa mustaqbal. I will be waxaan noqon doonaa. I shall be waxaan noqon doonaa. You will be waxaan noqon doontaa. They will be waxay noqon doonaan. He will be waxay noqon doonaa. She will be waxay noqon doontaa. It will be waxay noqon doontaa. Marka waa
simple future ay noqonayaan will have been ayadana waxay noqonaysaa future perfect iyo waxaan isticmaalaynaa future perfect oo ah will have been iyo shall have been will sideedaba waxaa la siiyaa dhammaan subjectyada oo idil 7 subjectska laakiin shal waxaa la siin karaa keliya I iyo will verb to be fal ahaanshaha baasiga tegey waxaa la isticmaalayaa was were iyo had been I was waxaa ahaa you were waxaa ahayd I had been waxaan ahaa you had been waxaad ahayd they had been waxay ahayeen she had been waxay ahayd it had been waxay ahayd intaasaan kusoo gabagabeynayna qaybtan muuqaalka sheergareeya like saara si aan muuqaalo kale usoo sameeyo waa mahadsantiin salaam calaykum